بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. دمان ولا لها كنت عن بيتك أستاذة فتون فشل جنر وهذا سلام عليكم. ودرسي أولادنا من الولادة إلى 20 عاما المهن مكيدشان إلى 20 سنة كجاريان. ما أنتم حنكها لنا تربية القيادية والفردية في القرآن الكريم. قرآنك سدوا محيط دياري تربية قفك كليس لتربينا أما قفك الله ديارنا قيادة وحجامين leadership laga dhigayo oo maxaa inuu wax qaado mas'uuliyad inuu qaado ama meel loo diyaariyo tusaale ahaan quraanka soo u sheegay adina ilmaha leadership ahaan qaabkee ugu diyaarinaysa marka rabto cunugaad inuu noqdo qof mutamayis exceptional inuu noqdo غير caadi inuu noqdo ama meel u dhiibto ama maxay ahaato mas'uuliyad nooca ma ina u diyaariso fikir ahaan qaabka u dhisayso iyo waxa lagaga baahan yahay Allah subhanahu wa ta'ala dad u diyaarinay anbiyo u diyaariyay oo risaalada inay qambaaraan ee quraanka lagu sheegay waxa kamid ah nabiga Ciisa sidoo Ilaahay u barbaariyay markii maxay ahayd Maryama ay dhalaysay leadarnima loo diyaarinay marka aabal aanu dhashay Maryama korinaysay qoyska korinay markaas marka waxay ahayd markii nabiga laga dhigay qaala inni abdullahi aatani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا marka muxuu dhahay marka aniga ilaahay adoonkiisa aan dhahay shuf tarbiya iimaaniya in ilaahay uu xiro rabdul ibn bi khaliqihi qofka ilaahay wax toosiyo tawfiiqdan Allah bixiyo hadaa rabto cunugan inuu leedan noqdo ama qof wax hogaamiye noqdo ama qof sayid noqdo ka dhig mid ilaahay ka cabsanayo ku beer qalbigiisa alla ka cabsi ilaahayna quraanka wuxuu suuratu furqaan وجعلنا للمتقين إماما waxaan hogaamiye ka dhignaa markasto oo maxay dadka kala ka sar marina oo maxay qofka alla ka baqo liana qofka alla ka baqo maxaa ka alla ka cabsi maxaa ka dhalanaya wax ma khiyaanayo wax ma lugoynayo wax ma xasdayo qofka kale dadka kale waxay haystaan uma quuri weynayo waa qof qanaaco leh waa qof iimaan leh waa qof dantiisa yaqaan waa qof dadka kale wax u ogol waa qof dadka kale aan xasdeynin maxaa waxa soo u diiday alla ka cabsiga qalbigiisa ku jiro alla ka cabsiga qofkiisa ku jiro ahib linnaasi ma tuhibbu li nafsik dadka la jeclow waxa aad naftaada la jeceshay ina guulaysto waa jeceshay dadka kale inay guulaystaan u diid ina maxay ta lagu dhibo waa necab tahay dadka kale ha dhibin ina lagu khiyaan waa necab tahay dadka kale ha khiyaanin sida qaayna ilaahay wuxuu toosiyo wallahu la yahdi kayd al-qaa'ilin idan maxaa ku tarbiyanaysa iimaan marka qanaaco wuxuu fahmayaa xaqiiqatu dunya waxay adduunyada waxay tahay waa maalmo kooban aad joogayso oo maxay nasiibkaada adduunka qaadaysa kadibna waa ka tagaysaa dadkii horteen joogi jiray ma joogaan marka aatani alkitaab dadana ilaahay wuxuu siiyay cilmi marka waa kitaabkii injiil la siiyay maxaa loo baahan yahay marka ilmaha education tacliin inaad dhaxal siisid cilmi inaad dhaxal siisid jaahil inuu ku weynaado ummi ku noqdo leader ma noqonayo jaahil leader ma noqdo hogaamiye ma noqdo waa ina cilmi dhaxal siisaa cilmiga u hore dhaxal siinaysan waa alqur'aan alkariim وسنة محمد صلى الله عليه وسلم marka wuxuu waja'alani nabiyya ilaahay waa diyaari nabiga dhigay hadana wuxuu iga dhigay waja'alani mubarakan mid barakaysan ayna ma kuntu marka waxay wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya marka ilaahay wuxuu dardaarmay inaan tukado sakadana oo bixiyo ayadana waxa waay calaaqatul insaan bi rabbih qofku inuu ilaahay ku xirnaado salaad marka ilmaha inaan salaada barto oo diinta barto zakaa wax bixinta dadka ila anfacdo خير الناس أنفعهم للناس dadka waxa u fiican qofka dadka anfaco oo wax ka tago oo maanta markii uu maxay adduunka ka tago wax lagu soo xasuusto oo ka tago ama cilmi naafic oo ka tago ama sadaqa oo jaariya oo ka tago ama masjid ka tago ama ceel ka tago ama isbitaal ka tago ama madrasa ka tago shay gadaashiis jiray ka tago marka waa awsaani bis salati waz zakati sadaqadi iyo waxa la isku xiray iyo salaadii la isku xiray nafcu الناس iyo calaaqatu الانسان بربه ما دمت حيا انت noolahay وبرا بوالدتي marka taasna waxa waaye calaaqatul insaan maca waaliday qofka xiriirku la leeyahay labadiisa waalid asaga marka hooyada biwaalidati wada hooyis bis marka nabi Ciisa Abraaham dhashay Yaxyana saas oo kale ay ku horeysay marka asagana wuxuu leeyahay qofka inuu waalidkiisa u baarno sameeyo qofkii sababtiisa adduunka ku imaaday ku soo koriyay ku soo tarbiyay ku soo xanaaneeyay asna inaad iloobin idan caasi waalideynka ma aflaxo inta badan ma guuleysto sababtoo ah waxay tahay qofkii soo barbaariyay yuu dayacay marka wawsaani وبرا بوالدتي ولم يجعلني قف جبارا عسي قف كبير بدا igama dhigno kibirka asagana waa lagu fashilmaa
وهذا dadka iska sara marsiiso oo wax kasto tahay aqoon kasto leedahay shakhsiyad kasto leedahay hadaa kibirto khalaas dhulka ku soo dhacaysa idan qofka kibro down dhulku galaya ha kibrin waliya Allah ilaahay waa nacib yahay kibirka wala huwa kibriya fi samaawaati kibirka waxa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala bas laakiin adigoo bashara mamnuuc ka yahay min laysa min calaamaat al-mu'min ma akhlaaqda mu'minka kamid ma aha qofka inuu kibro marka وبرم ويوم يجعلني جبارا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث هاي مكا دعاء مكا تاسون كنبي عيسى سو إلهي سبحانه وتعالى ودياري وحكى له إلهي الشيخ سبحانه وتعالى نبي قيادة نبي أصلا له دياري موسى عليه السلام نبي وش قصده بدن أدونك قرآن كريم كا وقصوين كيس قرآن كميلا فرب إلى وش يجي امتحانات ومري ظروفات ومري يسود أقوليستي يسود بقى وجهي marka wuxuu ku soo aaday waqti adag ku soo aaday oo dawlad dictator ay tirinayso fircaan oo ka tir masar ka tirinayay oo dawladii waqtigaas markuu u sareey ahaa marka maxay ahaato waxa dhacday marka boqorkii in fircaan faraacinada kamid ah mid kamid inuu riyooday oo ku riyooday inuu arkay maxay ahaato dab ka kacay masar oo maxay magaalada masar dhan baabiyay ilaa guriyada reer bani israa'iil maxay ahaato oo ka soo reebay yahuuda oo marka masar daganeed markii loo fasiray waxa lagu yiri waxaa dhacaya boqor ba imaan doona kursiga dawladnimada kala wareegi doona reer bani israa'iil ka soo dhex bixi doona markaas wuxuu yiri boqorka manooliya maswaa dhintay mise wili ma dhalanin ma wili ma dhalanay markaas hadaan wiilasha ka laayo gabdhahan aan u dhaafo maxaa ka dhalanay markaas wiilasha dhan laga laayay yahuudi reer bani israa'iil ka laga laayay gabdhihii kaliya soo haray magaalada wax ka shaqeeya la way marka ayaga waa la gumaysanayay faraacinta talinaysay markaas waxa dhacday marka wuxuu yiri sanadna wiilasha waa la iska dhaafaya sanadna maxay ahayd waa la gowracay waa la dilaya wixii wiilo dhasho Muuse alayhi salaam marka sanadkii wuxuu dhashay wiilasha la dilayo dhashay Haaruun wuxuu dhashay sanadkii uu maxay ahayd uu la iska dhaafay marka Haaruun dhashadiisa quraanka Muuse sheegin laakiin Muuse ma ku dhashay hooyadiis walwalka ku dhacay وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين marka waxaan ku soo marka nabi ilaahay Muuse marka maxay hato Masar uu ku dhashay hooyadii waa walwashay maxay sameeysaa ilaahay wuxuu u ishaaray fikir ku dhaliyay maxay ahayd inay maxay sanduuq ku dhaxrido ee ku tuurto marka wabiga Niil oo markaas filiyam bada yabd ee ku dhax tuurto ilaahay baa yiri anaga ku soo celinayna ha ka baqinayeen marka guriga fircaan oo maxay ahayd wuxuu galay Muuse ciidankii qabtay xaaskiisii markaas ilmo la'aan waxay tiri aniga halaysiyo ana korinaya ana halaysiyo markaas maxay ahayd marka maxay ahayd jeeshkii Muuse fircaan qabsaday وامرأته waxay ku tiri marka ay qabsatay waxay tiri ana korsanaytay Muuse fircaan wuxuu yiri waa dilaya yiri la taqta saa'in facahu marka maxay ahayd hooyadina ma ku waafakartay marka asbax fuad Muuse faariqan in kaada la tubdi inay tira ana dhalay inay tira marka waxa ka markuu qof nuuga waayay yaa marka waxa la yiri yaa nuujinay walaashiisa marka maxay ahayd oo Muuse maxay ahayd daba socotay fiirinaysa sanduuqa meeshuu aadayo yaa marka waxay tiri ana intu saayatay hal adullukum ala ahli bayti yakfulunahu lakum فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ من كان محل شاهد أشده آتيناه حكما وعلما markuu weynaado xoogeystay marka Muuse wuxuu ku barbaaray gurigii Fircawn ku barbaaray oo maahato yaa koriyay xaaski Fircawn oo mu'minad aheeda korisay marka hooyo fiican waxaana nuujisay hooyadiisa nuujisay dawladdu waxay lacag ku siinaysaa hooyadiis meelaha ay ragabad ka qataan hooyada in ilmaha lagu nafaqeeyo oo lagu biilo marka hooyadiisa korisay hadana gurigii Fircawn oo xaaski Fircawn ay barbaarisay marka nolol fiican oo xagga tarbiyada jasadiya iyo tarbiyada aqliya iyo fikriya halkaan culuum siyaasad political science oo ka bartay sidoo wax loo maamulayo guriga dhamaad dawladda laga maamulayo boqorkii meeshuu degan yahay qasriga dawladda halkaas ku barbaaray Allah wuxuu u diyaarinayay marka inuu reer Israa'iil hogaamiyo inuu noloshooda bedelo inuu gumaysiga ay ku jiraan ka saaro inuu maxay ahayd uu ka dhigo dad maxay ahayd qiimihii ay ku lahaayeen bulshada ku lahaay u soo celsho ana anbiyada waxay ka imaan jireen faraci isxaaq ka imaan jireen alayhi salaam marka wadakhala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn yaqtatilan hada min shi'atihi wa hada min aduwihi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين marka maxaa dhacday marka laba nin oo isdagaalay soo arkay nin waa reer bani Israa'iil oo man shaqaalihi waaye oo gumaysiga ku socda markaas waqtigaas la gumaysanay nin waa nin Egyptian oo faraacinta ka tirsanaa marka wuxuu yiri marka Muuse wuxuu la dhashay Muuse waa reer bani Israa'iil marka ninka la dilayna waa reer bani Israa'iil ninka wax dilayna waa ninkii dawladda ka dhashay oo maxay qabiilka sare ahaa marka Muuse wuxuu yiri Muuse isoo heelo u yiri marka nabi Muuse marka si fiican u barbaaray oo wuxuu xoogaysto u jismay Ilaahay ba diyaariyay
markaasaa maxay ahayd uu feer uu ku dhuftay halkii feer uu ku dhuftay ninkii jibta faraacinta ahaa wuu dhintay marka qof kale ma arkay ninkii wuu maxay ahayd Muuse markuu waa cabsaday waa cararay markuu cararay Madiina halkaas uu galay markuu halkaa galay marka halka hadana dilaa lagu xukumay wuxuu galay baadiyo hadana noloshii baadiyo halkaas ku soo bartay marka iyo ari raaci iyo maxay ahayd qisada way dheertahay hadda maxay ahayd muso ku dheeraynin marka halkaas marka wuxuu ku bartay xayaatadii badal marka xayaatadii siyaasadda uu ku soo barbaaray hadana waxa la baray xayaatadii baadiyaha iyo habla dhaqankii dadkii iyo xoolaha sida loo dhaqo iyo dadka baadiyaha sida marka Ilaahay wuxuu u diyaarinay nabi inuu isku qabto ummadda dhan isku wada hay laga rabo markaas ka bacdi risaaladii waxiigu imaaday taasna idan tusaale waxa waa tarbiya alqiyaadiyya fi alqur'aan alkarim nabi la yusuf idan sidoo kale dawladnimo iyo mulkiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala u diyaarinay markaas waxa la marsiiyay marxalado kala duwan suurada yusuf marka akhriso wax walba oo nolosha ku saabsan skiilska nolosha ku saabsan waad ka dhaxeelaysaa waan ku arkaysaa hadaa rabto inaad ganacsi businesska ku barato suurada yusuf waa ka arkaysaa hadaa rabto dawladnimada sida wax loo maamulo sida wax kala maareeyay waa ku arkaysaa hadaa rabto dulmiga iyo xanuunka uu leeyahay walaalihiisa u dulmiyeen waa ku arkaysaa haweenka iyo kaalinta ku leeyihiin maxay ahayd isku dirka bulshada iyo fidnada iyo dhibka boqoradii sida maxay ahayd ninka qabay ninkii boqorka xaaskiisi say u hamisay yusuf hadana ugu been abuuratay ayadana waa ku arkaysaa waxa ku arkaysaa maxay tahay nabinimada markii loo diyaariyay qisada sirta in la qasado la taqsus ru'yaka ala iqwatika fayakidu kull shay fi alhayat suratu yusuf wa kahlisa kull shay fi alhayat wax kasta nolosha ku saabsan iyo maharatul hayat skills of the life kulli waa ku arkaysaa marka ayadana sidoo Allah u diyaariyay subhanahu wa ta'ala oo mar walaalihiis ceelka ku rideen oo mar adoon uu noqdo soo dulmiga xanuunku leeyahay oo mar naagti boqorka ee hunguriyeysay oo mar xabsiga la galiyay wiilasha xabsiga riyada ugu fasiray asoo maxay ahayd oo mar maxay ahayd riyada wadankii oo dhan la soo baahday oo mar abaar ee dhaqaalaha sida loo kala maareeyo waa tarbiya alqiyaadiyya sida wax loo maamulo sida loo qofka loo diyaariyo idan waxaas oo dhan marka wax adiga aad tahay marka ka waalid ahaan ama maxay ahayd xirfadda adiga aad haysato ama shaqada markaas adiga ku shaqaysato ilmaha inay kugu dhex jiraan ay kula joogo hadaa dukaan leedahay hadaa ganacsi haysato hadaa meherad gaar haysato marka meheradaada inay ku indha hadaa siyaasi tahay kulli hadaa dhaqtar tahay hadaa maxay injineer hadaa macallin tahay hadaa saxafi tahay xirfadaas marka adiga ah haysato caruurta markay kugu dhex jiraan ay fiirsanayaan ay arkayaan ay maxay ahayd adiga ka u tahay model u tahay cunuga si oo maxay ahayd si tartiib ah indirect ah iyo xirfadii ugu wareegaysa marka wuxuu dhaxlayaa wixii adiga aad maxay ahayd aad adiga xambaarsaneed iyo si tartiib u dhaxala nabi ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu daawud markii maxay ahayd dawlad laga dhigo oo warita Suleymaan Daawud Suleymaan wuxuu dhaxlay aliiri Daawud aabihiisu nabinimadii iyo mulkigii dawladnimadii uu ka dhaxlay Suleymaan dhaxlay idan marka Daawud uu talinay oo ciidanka hogaaminay Suleymaan waxa ma qabanay waa aabihiisu la socdo uu fiirsanay marka xagga dawladnimada xagga dagaalka xagga wax maamulka xagga maxay ahayd difaaca dawladda kullu marka Daawud uu nabi ahaa marka nabi Daawud marka asaga waxa la isugu daray nabinimadii iyo dawladnimadii la isugu daray laakiin marka nabiga noolaa inta Daawud noolaa Suleymaan cunug yar uu ahaa marka waa barbaaray laakiin marka Daawud meesha ka baxay yaa dhaxlay Suleymaan dhaxlay Suleymaan wuxuu dhaxlay mulkigii iyo dawladnimadii iyo wixii aabiis hayay nabi ilaahay markaas wuxuu maamulay dawladtii aabiis ka balaaran ka maamulan sidaas marka leadership quraanka u sheegay oo ah oo loo diyaariyo caruurtaada marka diyaarinaysa adiga waxa aad tahay ama maxay xirfad kale u sameynaysid waa inuu ku dhex jiraa waa inuu fiirsadaa waa inuu arkaa waa inuu practical u arkaa waa inuu maxay waxaas loogu hadaa dhaqtarnimada isbitaalka practical ku sameeyna haduu engineer yahay dhismaha iyo meelaha ka socdaan haduu business yahay markuu soo kaaco soo aqliyo satiir ejig soo gaar ganacsiga iyo suuqa dhexgalka bulshada haduu macallin yahay qabla dhaqanka ardayda kulli haduu saxafi yahay idaacadaha iyo istuudiyaasha meelaha wax lagu duubo marka wax alla wixii aad rabto in cunuga leader ahaan oo aad ugu diyaariso waa ina meesha dadka waxaas yaqaan oo cunuga la fariista oo cunuga ku dhex jira oo cunuga arkaa taas marka quraankana maxay tarbiya iimaaniya oo ah mid aad u sheegno muhiim ah qofka hadii alla ka cabsigiisa aad u saramaro wax walba oo nolosha toosayaan qof maxay ahayd guuleystuna noqonaya xasanimada iyo xiqdiga iyo waxa dadka dhex yaala iyo wax suquuris la'aanta iyo waxaas dhan maxay ahayd nadiif ka noqonaya waana taadahana oo ku bilowne oo jacalna lil muttaqiina imaama qofka alla ka baqaaga leader noqdo qofka alla ka baqa leader noqdo yaana shartiisa laga nabadgalaya qof dadka kale wax u ogol noqonaya wa ila liqaa'in aakhir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh